daawadayaal waa idin salaamayaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa maalin kale oo qurux badan hadday habeen ku taana waa habeen kale oo qurux badan iyo muuqaal kale oo xiiso badan waxaan ahay boqorka dhiirigelinta Saciid Galeyr halka iga daawataana waa Saciid Galeyr daawadayaal haddii aad channelka cusub tihiin mar waliba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan deemeeshan waa meel aad ka heleysaan wax walba aad u baahan tihiin aad iyo u mahadsan tihiin intii i taageertay waan u mahad celinayaa intii aan i taageerina iyagana waan u mahad celinayaa mar waliba waxaad i tihiin walaalahay aan jecelahay ogaadana boqorka maalmahan korbu isaga socdaayo waxay wasidaan hore idinkugu sheegaba inuu madaxweynaha isla sawiro wax yar ayaa kaga dhiman marka daawadayaal waxaan soo wadaa ama aan soo wadnaa muuqaalo tiro badan riwaayado hadhiin majaajilista hadhiin qosul hadhiin reactions hadhiin falanqayn hadhiin adiga muuqaalo tiro badan baan soo wadaa aniga iyo asxaabtayda ama kooxdayda baan ilaahdo daawadayaal mar waliba waxaan idinka rajayn doonaa inaad i taageertaan oo aad i sabad garaysaan aad iyo u mahadsantihiin maanta maxaan idin hayaa ama aan ka faaloonayna tartanka Muqdisho Got Talent waxaa ka soo qayb galin la yiraahdo Deeq Diamond kulli waxaan u maleynayaa dad fara badan inay garanayaan Deeq Diamond waa kee ase yeeshee waa waxa uu ku soo bandhigay dansi ama jazz waxaad u taqaano cajiib ah haddee intii tartankan ka soo qayb gashay Muqdisho Got Talent ma jirin qof ku soo galay ciyaar ama dansi ma jirin maadaama uu yahay qofkii ugu horeeyay ee dansiga ama ku soo galay jazzkan ku soo galay tartankan ama kaga soo qayb galay waxaan rabaa inaan bogaadiyo waa inaad u bogaadiyo ninkana waa nin leh talentyo kala duwan waa heesa ayuu qaadaa maanta waa kana jazzkaas ayuu wataa ama dansigaas waxaan jecelahay inaan wax yar idin kala baxo asiga iyo idinka dhageystaan isagoo dhahaya xirfadaha uu leeyahay soo ka shaqeynaya bal hadda iskaayabar Muqdisho Got Talent maxaad kaga qayb galaysaa oo hiba ah maasha Allah horta markii hore magacayga isku baro magacaygu waa Axmed Deeq Maxamed Axmed oo magac dheer atooraha Muqdisho ama Deeq Diamond la fanaan Deeq Diamond hadii hore loo arkay iyo hadii la maqlabo Deeq Diamond ayaa maanta lin joogo waliba wuxuu joogaa Muqdisho Got Talent oo ayuu maanta soo booqday soo maanta waxa marka waa wajib badan aniga hees kaliya ma qaado dad qaar heesa ii qarin dad qaar jacay qarin riwaayiste majaajiliste qaar kood waxay qarin jinesti kala foto waa wajib badana soo maanta waxaan idin soo diyaariyay hees oo dansi ah waliba daawada markii uu ka sheekay xirfadaha uu leeyahay waxa uu tartankan kaga qayb galayaa hees sida uu sheegay uu ka soo minguuriyay ama uu ka soo qaatay heesna ma aha just waa dansi uu ka soo qaatay nin cadaan ah oo Mareykan ah oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo sidan u sameeya qaabkan ama dansigan waa laga helay YouTube-ka uu ku jira waana muuqaal helay daawadayaal aad u tiro badan gadis ah qaabka ciidamada military oo kale ama commandosta aan kaga deysanayo nin cadaan ah oo commandos ah Mareykan ah oo hore dansiga u sameeyay so I'm ready waa hagaag okay soo daa horta marka la fiiriyo qaabka uu asagu ninkan uu ciyaarayo waa qaab iska macquul ah hadana cajiib ah oo waxaa leeyahay
horumar wacan waa nin horumar sameeyey ayaa lihi karaa waa nin yaqaana daansiga oo flexible ah oo jirkiisu yacni u baahi u qabo in uu sameeyo daansiga sidaan oo kale ah waa uu fudud yahay waana la keenay qaabka daansiga iyo muusigu waa isleeyihiin 100%. qaabku uu ciyaariyo iyo daansigiisu waa fiican yahay laakiin bartiga tartankan waxaa ka maqan hal garsoore ayaa ka maqan oo Axmed Shimaali ma fadhiyo oo uu ka maqan yahay tartankan kulay waxaa laga yaabaa inuu sababo shakhsi ahaaneed uu kaga maqan yahay inkastoo uusan ka maqnaan jirin tartankan maalintii uu soo galay ilaa hadda uu ku jiray oo uu garsooreeyay laakiin dee 2 garsoore kuma filna mar waliba waxaa loo baahan yahay in la helo 3 garsoore ama wax ka badan adugu ilaa 4 5 mararka qaarkoodna 5 waa la gaarsiiyaa hase yeeshee 3 garsoore ayaa ugu yar 2 garsoore kuma filna marka waxaan rajaynayaa inuu booskaasi buuxsami doono haddii Axmed Shimaali haddii uu ka maqan yahay inuu arrimihiisa soo dhameysto haddii uusan ka maqnayna oo uu si kale uga maqan yahayna inuu buuxsami doono ayaan rajaynayaa okay mawduuca aan u soo laabto qaabka ama ciyaarista deeq aadii u fiican tahay okay isagii waa kana oo dhahaya aniga maxaad ii weydiin laadihiin degmada aan ka imaaday ama aan ka soo jeedo xaafadda ma sheegin midimay weydiin meesha ka socdo xaafadda degan hore ku sheegay markii hore ku weydiinay adaan nagala hadhaysa hadda ku sheegaya degmada Kaaraan ka sadaanay ya salaam magaalada Muqdisho degmada Kaaraan taalan fara badan baa ka yimi Kaaraan taalan fara badan baa ka yimi inankii kaalinta labaad tartanka tartankii heesaha iyo hibada jiilka cusub kaalinta koowaad inankii galay iyo kii kaalinta labaad galay labaduba waxay ahaayeen Kaaraan Diamond isagana Kaaraan kuwa kale oo aan sugaynaa Kaaraan masha Allah okay sida aan wada ognahay ba tartankii ka horeeyay waxaa ka soo qayb galay 2 wiil oo la yiraahdo 2 wiil Cabdiqaadir Muxiidiin Kulmiye iyo Cabdiwali Ibrahim Maxamed oo labaduba tartanka koobaad iyo labaad ka galay labadooduba waxay ka imaadeen degmada Kaaraan ninkan waxa uu leeyahay waxaan ka soo kacdaa ama aan ka imaaday degmada Kaaraan kulay waxaan rajaynayaa amaba ay tahay ba in Kaaraan ay taalo talanti fara badan dad fara badan oo hiba leh inay degan yihiin ama ay joogaan saas ayaan qiyaasaya marka daawadayaal ninkan Deeq Diamond leeyahay ma hadda ugu horeysa masraxa mise ugu horeyso dhabaantii ugu horeyso ninkan waa kii la qaaday fartuun balbalaarka heestii aheeday waxa ku saaran waa kana isagoo heesaya wadnahayga wehel u tahay waxyaa dhiigaad waraabisaa wakiilka meehi wixii kugu dhaco walaalow idaa wadadaadana raac wakiilka meehi wixii kugu dhaco walaalow idaa wadadaadana raac walaale waxaan ku saaran fartuune waa i wataan walaale waxaan ku saaran fartuune waa i wataan yaahuu warkac iga tag waxaan wax kama goyside yaahuu warkac iga tag waxaan wax kama goyside ugu dambeyntii daawadayaal ma mudan yahay Deeq in la dhiirigeliyo dhabaantii waxaan dhihi karaa haa maxaa yeelay waa qofkii labaad ee barnaamijkan Muqdisho Got Talent ku soo bandhigay wax ka duwan hees inta badan 98% dadka ka soo qayb galay waxa ay ku soo bandhigeen hees ama waxay ku macnaha ama waxay uga qayb galayeen talentiga codkooda dhabaantii
marka talent laleeyahay waa hibo hibadu ma ahaan kaliya in inta masraxa la soo istaago hees la qaado in la ciyaaro oo ciyaaraha sidaan oo kale ah lagu ciyaaro waa hibo majaajilistaha in dadka lagu qosliyo waa mid ka mid ah hibooyinka ugu wanaagsan ee loogu jecel yahay barnaamijyadan Got Talent-ga la dhaho de heesuhuna waa aad iyo aad iyagana aad loo bogaadinaya hase yeeshee waxa lagu tartamo kaliya hees maahan marka laga soo tago wiilkii yaraa ee awoodda Ilaahay siiyay ilkiisa ku qaadayay 15 litir oo biyo ah ninkan ayaa noo labeeyo oo tartankan kaga soo qayb galay wax ka duwan hees aad ayaan u bogaadinaa Deeq Diamond daawadayaal waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalka fadlan haddii aad channelka ku cusub tihiin subscribe dhac isaga siiya haddii aadan ku cusbaynin asxaabtiina la wadaaga intaynu ku kulmayno muuqaalkiisa xiga daawadayaal waxaan idin leeyahay nabadgelyo